dambeyntii asxaabta qaaliga asaas inoogu soo baxay afurkii iyo cashadii isku jiray canjeelo Itoobiyaanka ahayd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad asxaabta qaaliga ah meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan aad iyo aad baan idin salaamaya. galabta waxaan inoo wadaa canjeelo Itoobiyaan. waxaan ka sameysanayaa daqiiqdaas halkan waxay yaala hilibkii iyo basal marka beed iyo khudaar kale ay raacayso insha Allah. qaybaha kalena waan idin la wadaagaya imka inta baan idin tusay. daqiiqda waxaan gashanayaa ovenka insha Allah way la soconaysaa. daqiiqda hadda waxaan ku shubtay sihin xigan waa sinxiga ovenka lagu gashado cuntada. waxaan gelinayaa ovenka waxaan doonayaa inay brown noqoto marka ovenka gelinaya ilaa 5 daqiiqo ay ovenka igu jiraysaa. brown markay noqoto ka soo saaraya insha Allah way la soconaysaa. hadda ovenkii baan gashaday inay brown noqoto ayaan rabaa insha Allah ila socda. hadda waxaan ku shubanayaa saliid baa dabka ii saaran aan digsiga ku shubtay. hilibkii baan ku shubanayaa jiirka ahaa فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي. هذا waxaan qooshanaya daqiiqdii waxaan ku darsanayaa milixda brown kana way noqotay ma sha Allah. waxaan kala ku darsanayaa liibitadaas ama fixiso aad bas u taqaaniin soo ku darsanaya waan qooshiya marka ila socdo. لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رب. hilibkii hadda saas way igu shiilmay isaga wax khudaar uma isticmaali doono. shiilmaadkiisaas lagu isticmaalayaa marka insha Allah saas way igu shiilmay. hadda waan ka guranayaa. ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. hadda halkan waxaan ku diyaarsaday suugada canjeelo Itoobiyaanka lagu cuni lahaa. mar hilibkii gaar baan u shiishay. halkan waxa iga yaala waa basal ugu yaraan waa 1 kiilo oo basal ah. oo basashu markasta cuntada ku badsato waxay ku taraysaa macaan ma sha Allah. canjeelo Itoobiyaanka suugadeeda basasha in lagu badiyo aad iyo aad muhiim u tahay. halkan waxa yaala 3 midh oo xabuub ama yaanyo aad basal taqaaniin. waa barbarooni hal xabo barbarooniya. halkan waxa igu jira baamiye iyo basasha basal baar. halkan waxa igu jira barbarooni shiidan huruuda cuntada loo isticmaalo filfil iyo maraq digaag. marka insha Allah halkan waxa ay taala tirtir iyaduna daasadaas aan isticmaalaya insha Allah ila socdo. hadda digsigii waxaan saartay shooladii waxaan ku shubanayaa saliid aad u badan ma isticmaali doono. waxaan ku shubanayaa kala basashi. فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير. هذا بساشي كيلي دماي بساشي عمرك aan shiilay saas ay noqotay intaas aba ka soo hadho saas ay dhimatay. waxaan ku darsanayaa khudaartii kale waa baamiyihii iyo basal baartii. waxaan kala ku darsanayaa xawaashiyadii. waxaan ku darsanayaa xabuubkii iyo tirtirkii isku soo darsaday isku jarjartay. ما شاء الله waxay noqonaysaa suugaad iyo aad u dhadhan wanaagsan ma sha Allah tabaaraka Allah. qaybaha kale hadhayna way la soconaysaan insha Allah. soo bislaanaysaa marka kamsarihi iyo toontii bay hadhay markaan ku daro iyagana way dil wadaagay insha Allah. hadda intaas isku daboolanayaa. hadda waxaan ku darsanayaa kamsara iyo toon aan isku soo darsaday. ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى
hadda waxaan kaloo diyaarsanayaa suugadii kale iyadana lagu cuni lahaa cafaaxda. على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طل hadda waxaan ku shubanayaa qaybtii kale basashii saas ay igu guduudatay maasha Allah. waxaan ku shubanayaa miskii qaybtii kale ee lagu isticmaalay canjeelo xabashida saas ay diyaar inoogu tahay. waxa weeye misirtii suugadii horena waa idin tusay iyo hilibkii maasha Allah tabaarakallah. kana saas uu weynoo bislaaday saas uu diyaar inoogu yahay. misir weeyaan, misir baan ka sameeyay insha Allah. qaybaha hadhayna waa idin la wadaagay, waa idin tusayaa steebada dambiisa inoogu soo baxdo. hadda qaybtana saa diyaar inoogu ah insha Allah. canjeelo Itoobiyaantii saas ay u jilicsanto waa inaad jilciso say wax maasha Allah saftii kuugu noqoto. hadda maqliga ayaan ku shubanayaa ila socda. فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي saasay indhow leedahay maasha Allah tabaarakallah. saasay inoogu soo baxaysaa quruxda badan leh. maqligayga aniga aad uma weyne oo aad uma waaweyneynayo, laakiin sideeda kale waa canjeelo Itoobiyaantii saxda ahayd. waa maasha Allah tabaarakallah si qurux badan bay inoogu bislaanaysaa. saxabadii u horeysay sidaa quruxda badan ayay inoogu bislaatay maasha Allah tabaarakallah. hadda waan ka rogayaa saas aad aragtaan baan inoogu bislaatay. kabacdi saasaan inoogu soo dhammaynayaa insha Allah. qaybaha dambe markaa soo wada dhammeeyana waa idin tusayaa. xabadii horaan iminka idin tusay. فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان ugu dambeyntii asxaabta qaaliga saas inoogu soo baxay afurkii iyo cashadii isku jiray canjeelo Itoobiyaanka ahayd. waxaan idin leeyahay fiidiyowga xiga intaynu dib ugu kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. باي باي. يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب